wiil ka shaqeeya arrimaha shukaansiga iyo garoobada oo lagu arkay baraha bulshada. waa muuqaal xiiso badan ee higa tagay la daawada dhamaadka. waxaad ogaan doontaa wax badan oo ka qarsoon. asxaabta u shargaree falowleegno inoo muhiim mahadsanid. waxaa saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada qabsaday dood culus oo ka dhalatay hadallo uu sheegay wiil Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka caanka ah baraha bulshada. wiilkan oo inta badan soo duuba muuqaalo oo uga hadlayo arrimaha guurka, haasaawaha ragga iyo dumarka iyo waxyaabaha jaceylkooda dhibka ku haya. inta badan waxa uu xoog saaraa oo uu ka hadlaa dumarka lacagta ka qaata ragga uu xiriirka jaceylka la dhaxeeyo iyo sababaha ay uga qaataan. ragga ayuu faray in gabdhaha marka ay weydiistaan lacagta ay u diidaan ayna dhahaan lacag waan haystaa laakiin kuma siinayo, mustaqbalka ayaan isticmaali doonaa. cajiib. wiilasha ayuu ka dalbaday inay isweydiiyaan lacagta uga baxda naag madaxeeda, tirada ay la ekaan karto, dibna isku laabtaan. waxa uu ka codsaday inay joojiyaan dumarka uu haasaabaha kala dhaxeeyo oo ay maqaayadaha waaweyn geenayaan, qarashka badanna gelinayo. waxa uu sheegay inay tahay inay geeyaan maqaayadaha yaryar ee laga helo shaaha iyo cabitaanka kaliya, balse aan soo saarayn qarashaadka badan. meeqa jeer bay kugu dhacday naag inaad kulankii koobaad is aragteen oo maqaayadaad ku ballamisay, cunto qaaliya u gaday, soo labisatay, qarash isgelisay? kulankaas markuu dhammaanayay $300 ama $200 ama 150 ama 50 meesha aad joogtay ku xiran tahay uu ka baxay. naagtiina mar dambe aysan kula soo hadlin. adaa iskugu wacan dhibaatadaas. bedel laakiin qaacidada barada 2022 ma shaqaynayso. naag kulanka koobaad waxaad geysaa maqaayada kuugu dhow uguna raqiisan. maxaa ka wadaa? shaah meel laga helo, cabitaan iyo qaxwo kaliya. hadday intaa kaa cunto kadibna ay maxaa la dhihi jiray soy kugu dhahdo, waad nabad qabtaa, waad ka kaban kartaa. okay? wiilkan adeegiisa halkaas kuma uusan simin ee xalqooyinkiisa guurka iyo haasaawaha waxa uu ku sheegay inay soo badanayaan hablaha garoobada ah ayna u dacwo doontaan TikTok-ga. waxyaabaha igu yaabka badanna waxaa ka mid ah in garoobyada Soomaaliyeed ay kor u kacayaan. garoobyadu aad bay u kacayaan. furiinku wuxuu marayaa 65%. taas waxaa kaaga sii daran in TikTok uu noqon rabo meelay garoobyadu u soo dacwo tagaan. xafiiska caruurta ninkii furay ima biilo, ma anaga kugu darnay? yaa kugu daray ninkan? dad miyaadan lahayn? offline-ka wixiina ku dhamaysta. online-ku iyo TikTok maaha xafiiska caruurta iyo xafiiska naagaha la furay. 2022 waxaan rajaynayaa TikTok inuu noqon doono meel lagu baashaalo. haddaba maxaa ka taqaanaa barfasoorka arrimaha shukaansiga iyo garoobada Cabdisamad Mahasalaad oo ku magac dheer Xaliye? xaliye ayaa dad aad u yaqaan waxa ay sheegeen in gabar horay uu xiriir kala dhaxeeyay, guurna ay ku balameen ee qayaantay. taasna ay sabab u tahay in badi uu ka hadlo arrimaha qayaanooyinka dumarka ay u geystaan ragga xilliga haasaawaha. sidoo kale waxa ay sheegeen in ninkan marar badan ay gaadeen haween uu haasaabo kala dhaxeeyay kuwa oo lacag badan ka cunay. haddaba daawada adiga muxuu kula muuqdaa ninkan?